dhanka kale maarayaha guud ee shirkadaha dahabshiil group cabdirashiid ducaale oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dahabshiil ay ka go'an tahay horumarinta dalka iyo dadka. Assalaamu calaykum dhammaantiin waan ka mahad celinayaa inaad ka soo qayb qaadateen kulankan. waan u mahad celinayaa dhammaan qof walba ka shaqeeyay inay suurto gashay xafladan maanta isugu nimid. waxaan kaloo si gaar ah ugu mahad celinayaa gudoomiyaha shirkadda Xaaji Maxamed Saciid oo isna afkaartiisa iyo taladiisu ay qayb ka tahay maanta mashruucan inuu joogno. waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta Berbera ay noqotay dekedii waddankeena ku taala ee uu ku soo xidhmo markabkii ugu weynaa ee shidaalkeena. tan oo ah mid taariikhi ah, mid fursad badan u dhalinaysa dadkeena, mid gobol kale aynu ku noolahay uu gaadhsiin doono shidaalkaas, ama ha noqoto dhulka Soomaalida ama waddan kale aynu jaar ka nahay ha noqoto. waxaynu ognahay inuu shidaalku ka mid yahay waxyaalaha horumariya nolosha, ama ha noqoto xagga leydhka, ama ha noqoto wax soo saarka, ama ha noqoto dhinac walba oo nolosha la xidhiidha. shidaalku wuxuu horumariyaa ummadda dhinac walba. maantana markab ka yimi wuxuu ka qayb qaadanayaa horumarkaas aynu doonayno inaynu gaadhno. waxaa qayb ka qaatay imaatikiisa ama inuu maanta inoo suurto galay dad badan oo kala duwan, shirkado caalamiya. shirkadda Hoon waa shirkad la shaqaysa dhammaan ganacsadaha kala duwan ee waddanka ku yaala. waxaanu rajaynaynaa in shidaalkani uu noqdo halkii marba maraakiib iman jireen in kan iyo mid ka sii weyn la soo iibsado oo ay ganacsatada u suurto geliso inaanay socdaal dheer gelin oo ay shidaal dabadda uga soo iibsadaan. waxaa kaloo qayb ka ah qaybta terminalka oo iyadana madaxdeedii halkan ay joogto. intuba waxay muujinaysaa markaynu waddankeena aamino, dhaqaalaheena gelino, shaqo ka abuuro, in horumarka waddankeenu sii korayo, isla markaana ay dhiiri gelinayso in dad badani ay waddankeena aaminaan. haddaynaan waddankeena aaminin cid aaminaysaa ma jirto. haddaynaan lacagteena haysan waddanka aynaan gelinna cid kaloo gelinaysaana ma jirto. taasna waxaa ka markhaati ah maalgashiga iyo shaqooyinka badan ee Dahabshiil Group iyo shirkadaha la midka ay waddankooda ay geliyaan.